Somaliland ayaa markii ugu horeysay yeelanaysa diyaarado cusub kuwaasi oo loogu talagalay in lagu tababaro farsamayaqaano iyo duuliyaal madani ah oo u soo baxaya dalka waxaana madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo kormeer ku tagay gegida diyaaradaha ee Cigaal International Airport uu kormeeray diyaaradahaasi madaxtooyada Somaliland ayaa sheegtay in muddo 2 sano ah ay qaadan doonto casharada la xiriira cilad bixinta iyo duulimaadyada diyaaradaha oo ay hay'adda duulista iyo madaarada Somaliland diyaarisay sidoo kale madaxweynaha ayaa kormeer ku tagay taawarka laga hago diyaaradaha kala duwan ee isticmaalaha hawada waxaana madaxweynuhu warbixino ka dhageystay maareey ku xigeenka hay'adda duulista iyo madaarada iyo howlwadeennada hay'addaasi waxaan haynaa hawsha qaranka hadda nagu hogaaminaysay hay'adahan iyo ka shaqaalahaanba hawlowna sidii aad noo fartay baan wadnaa falaatiskii waa kuwan hadda loo hadlaynay istiimadooda naga wada qornay surface-ka revenue siin surface oo baahnayaan waxa jira qolada shaqada carq laga laakiin ay suurtagal tusaalahan diyaaradaas oo diyaarad imaaraata waxay ka timi Dubai waxay ku socdaa São Paulo Brazil marka imika diyaaradda anagoo hagayna wadna soo dhaxgal israadeen waxay siin message kala duwan oo khaldan marka uu sheegay beeladku wuxuu yiri waxaan ka helnaa CBDLC-ga conflicted messages from the CBDLC. We had 2 messages. We've been trying to call Flight Device 662 on guard just to confirm with them. No reply from them. But yes, we heard that you were talking to Flight Device 662. So just confirming that you were in two-way. We had relayed for them to stop at flight level 310 was one of the messages. diyaarada flight Dubai ka kacday ayaan anaga imika diyaaradii kuwina kaciyay kan dul maray anaga siina amarkooda iyo surface-ka ay u baahan yihiin marka ay waxay isku dayaan nimanka la waxaan airspace hayna waxay isku dayaan diyaaradii iska hor keenan anaguna inta aan si airspace-kan safe u noqdo safety-ga anagu xoog saarnaa inta badan xasan waxa la ficiltamina safety-ga ayaan number 1 ka dhignaa anagu